الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. runtii waxyaabaha waaqaca dhacay waa la wada soconaa si gaara meelaha ay gaalraacyada joogaan iyo waxa ka dhacayo ama ku sheega farxado ama banaanbaxyo ku sheega ka dhacayo waa la soconaa idaacadooda kala soconaa qofka muslimka ah waaqiciisa uu soo rabaa runtii farxadahaas iyo mashxaradahaas iyo banaanbaxaas iyo badaha la ridaay oo lagu faanayo horta waxaas weydiinayna maxaa keenay dadku waxa way waxa ku keenay oo waxaas ka sabab maxay tahay waxaas leeyahay waxa keenay dadku inay farxaan nacaybka loo qabay Xasan Dulli iyo tiimkiisa. Xasan waa mid duleeyay Soomaaliya iyo jinsiga Soomaaliya aad u duleeyay waay oo Itoobiya hooskay oo aad u liito waay marka ciil loo qabay dulligaas iyo tiimkiisa iyo ka siirada ku wareegsaneed ciilkii loo qabay ay dadku la boqdeen maxaa yeelay Xasan Soomaaliya waa duleeyay dhinac kasta ka duleeyay gaalu ku hogaamiyay dekadii uu ka xiray eeraboorradii uu ka xiray dhaqaalihii uu ka baabiyay ganacsiga uu ka baabiyay aad buu duleeyay ciil iyo nacayb loo qabay ayaa keenay mid labaad oo keentay dadku inay iska farxaan iska qiila ilaa caawa iska ooyaan waxaa ka mid ah nacaybkii u qabaan ciidamada shisheeye waddanka ku soo duulay oo si xun u gashay dadkii miday taangi marsiiso miday garaacdo miday toogato miday baabi'iso cid ka hadlaa iyo cid waxaynaysa midna aysan jirin ciilka loo qabay marka dadku waa muuqaday wuxuu u malaynaa inuu farmaajo wax u qabanaa marka waa iska muuqadeen dadkii meel maxaa yeelay qofka waxaa la yidhi nin hal ka dhuntay haan gacanta geli baa la yidhi ma garanaa daarashanka iyo cidda wax u qaban karta laakiin waa iska muuqadeen dadkii ciilkii baa ka batay markaa lagu laayay halganaan lagu laayay ceelbuura lagu laayay xamara lagu laayay dadkii ciidamadii gumaysiga ayaa aad iyo aad u baabi'ay oo dhameeyay midda saddexaad waxaa keenay farxadahani waxaan qaylinaa xildhibaano badan oo cagta lagu hayay oo ay gumaysanayeen midkan muxuu ahaa Tigreega meesha jooga iyo kuwan Ugandeska ay gumaysan jireen oo la bahdali jiray Xasan uu bahdali jiray ayaa maanta fursad u helay oo marka furtay oo goostay marka waxyaabahaas waxay koosgareeyeen ciilkani waxayna ka baahan laakiin jaash waxay tahay maxay u heelin muxuu keeni koona muxuu qaban doonaa farmaajo muxuu qaban doonaa samay doonaa ciilkan ummadda ma ka saari doonaa dhibkaan ma ka saari doonaa su'aalahaas waa su'aalo u baahan inaan taxliilino oo aan gadaal ka fiirin waxaa socnaa lahayd in loo farxo ilaahay diintiisa kor noqoto cadawga ilaahay oo jabo gaalo oo baabado in loo farxo ilaahay lagu fiirin laakiin dadku waxa weeye waxa ka maqan meesha ka raadina ma garanayaan doctore waxaan la soconaa in kooxda ridada Soomaaliya hogaano fara badan oo murtadiina ay soo martay shalana waxay doorteen murtadka farmaajo bal ninkani murtadka taariikhdiisa iyo dhibaatada uu u geystay dadka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka bal arimaha wax nooga taataabo bismillah runtii farmaajo taariikhdiisa soo CV-giisa iyo ardaynimadiisa wuxuu sameey jiray iyo fadeexadii xamar uu ka sameey jiray hadda inaan gala mar rabo laakiin waa soo bixi doona insha Allah taala maxaa la taariikhda cidna uma naxariisato kisrigiisii iyo wuxuu ahaa iyo mar baan ka sheekay doona insha Allah taala hadda dad maanta ku heelaysan ooyinay markaa si ooyaan aska buraan dib malaha laakiin waxaan ku sheegayaa ninkan inay ka buuxdo nacayb islaamnimo iyo diin nacayb inay aad iyo aad uga buuxdo way taas waxaa ku cadeynaya hadalkii ugu horreeyay uu ku hadlaa waxaan la dagaalamayna oo geedka u fulinaan oo adowga iska kicinayna inuu yiri maaragtay dadka mujaahidiinta marka carabtu waxay tiraa weel walba wixii ka buuxa ka daato marka waxa calooshiisa ku dura ayaa ka daatay waa nin u go'ay nacaybka diinta Islaamka iyo muslimiinta iyo diinta Ilaahay inay kor noqoto waa ninkii hadalkiisa aan haynaa oo noo record garoosin waana yaalaa 6 bilood meeshaan joogi jiray hadaladiisa waxaa record garaysan oo hadda la maqashay kara hadii loo baahdo inuu dhahay halkan waxaan ka difaacayaa Mareykanka ka difaacayaa halkan xamar waxaan ka difaacaynaa Mareykanka Washington ka difaacaynaa waxa kale oo ku tusinayso inuu yahay mid u go'ay gaaladaas iyo gaala jacaylkaas ninkii kanaxa ama ninkii ku farxaasay u talaanay hawlii talamaane awwal marra iyadoo hubsanin oo vote-kiiba dhamaanin tiradii bas la sheegay ayaa aqalka casay gaalada looga tali wuxuu waxaan u hambalyeynaa farmaajo u hambalyeynaa marka waa in la soo dirso Mareykanka laga soo tirsaday marka waxaan leenahay cadowtinimadaada ciilkaada qulmuutu bireydkum aan leenahay insha Allah taala ninkii galabta jihada wuxuu yiri caqabadaha hor taagan buu yiri ninkii wasiirka maaliyadda uu ahaa jiray xilligiisa baa wuxuu yiri caqabadaha hor yaalo waxaa kamid uu yiri shabaabka iyo dadka dawladda ku kacsan waxaan u sheegayaa buuri cadowga la qiranay dhibaatadiisa waxaan u sheegayaa dawladda kasta isku yimid wax kasta la isku keenay shabaab dagaal waxa looga qaado way isagana wuxuu la soo istaagay shabaab aan dagaalama marka waa la arki doonaa insha Allah taala marka waa nin Mareykan u go'ay
mukhlis waa daacad ah ku faanaya maraykanimada iyo gaalnimadooda ku faanaya dimuqraadiyada iyo siyaasada ku faanaya inuu islaamka diinta la dagaalamo laakiin waa heli doonaa insha allahu tacaala. ugu dambeyntii doctor maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa? bismillah ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ninkii aakhiro ilaahay rada ka qabo subxaana watacaala ilaahay baa loo socdaa muslimiin baana waa dhimanaynaa ilaahay baa noo istaagaynaa in laga fiirsado waxyaabaha qaarkood in laga fiirsado maanta waxaa la sameynaa dadka qaarkiis looga digo oo cawaanta ah caali berri way ka shalay doonaan rabbanaa inana atacnaa saadatana wa kubaraana fa adalluuna sabiila ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة بري ولا سلعنة دونا ولا كلا شلاي دونا ومضى النظيف آخره إلهي رجك قبط وحناهي بعض الكتايرين الإسلام في دين الله تغير أفكين كل جهاد دين تاع وغرسنا وقبطة قال يوحي قلقوتي مشروع رئيسي قال كيلو سعودنا بريكا نغلة قيامنا بري بالك نقول يا فريق في الجنة وفريق في السبيل لك الآية دونا قالنا هل كاسي دونتا مسلمين كان هل كاسي دونا مركوا على هاي in jihaadka la xoojiyo diinta ilaahay kuriyeelay la xoojiyo af iyo adni marba loo istaago farmaajo iyo tiinkiisa waxaan leeyahay runta wax kuu sheegaysan tahay taslim aan leeyahay war ilaahay u toobadkeen weli nafa ku jirtay maanta jaalis haysataa u toobadkeen ilaahay toobad waa ku furan tahay waxaana la nacnaa leedahay baqbaqda iska daa ilaahay u toobadkeen khadkaana ka bax haddaa diidiis waxaan leenahay ilaahay baa noo ballan qaaday quraankiisa noo sheegay بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا عزة إيه شرفت إيه بوش إيه راينت مؤمنين إلهي رسولك ساسكري أكون فكرنا أكون عنا لكن ما أنت توبة كفرا عقلي هذا الدج فكر تبت إلى الله ده في الدبر إيه قال الله إيه مريكا قال إيه ديمقراطية كبح ديمقراطية طرق نقول إن شاء الله تعالى إسلام دين إلهي شريعة وجهات كورين قربوا نقنايا قضية تسديد ومدك الآقات صومها بالمجاعة وفرماجة ونوجد عسنتها إسان كل إخنا ونقحها سيدا فرماجة وجاشة مريكا هو الله جرت روتيا رق ويل الكول الله براها جوانا تقانا هورا واركتي وعلينا ويل موت كجع فرماجة كسوه إيه فضل صدق وبنقول هاي كنا بشارع عذوب إلهي باطاي بأن اللهم عذاب عليهم كبيرا شكر دينت إلهي كور نقونيسو إسلام كور نقونا جهاد كور نقونا شرع إلهي كور نقونيسو قال رعنا أكثر مرنا بإذن الله الكريم انت أن إله الشيطان إلهنا نكهرنا سبحانه وتعالى وبالله التوفيق. Please subscribe.